cid kasta oo horumarka deegaanka ka jira carqaladeynaysa waxaan si buuxda uga soo horjeednaa oo dareenkayga ku cabirayna inaan si weyn uga soo horjeedno maanta nimanka isku tilmaamay beesha Jidwaaq ee maanta haddana beel ahaantii intay ka tageen la midoobay ururo nabadiid ah oo deegaankan horey u soo hagaardaamiyay cagaha soo qabtay dhibaato badan gaarsiiyay maantana la midoobay ururka Jidwaaq waxaan leeyahay maanta oo si cad u sheegaya horumarka dhalinyarta deegaanka ay u dhinteen cid kasta oo cagaha qabanaysa si buuxda uga soo horjeedna horeyna ururo noocoogan oo kale horey baan uga guuleysanay maanta iyo haatanna wax alla waxay yeeli karaan ama ay sameyn karaan ama ay dib noo ridi karaan ma jirto maanta deegaanku wuxuu u kacay horumar wax nabadiid la yiraahdo wax ururo ku magac sheegada waanu sifaynay waana laga sifeeyay deegaanku horumar buu dhaqaaqay ninkii qoriga hayaba qalinka qaatay marka waxaan si weyn u cambaareynayaa cid kasta oo deegaanka ka xun oo xaasidnimo iyo hagardaamo iyo propaganda ku wajahaysa horumarkan waanu cambaaraynaa waanu la dagaalamayna muruqayaga iyo maskaxdayada iyo maalkayagana waan kula dagaalamay haddaan dhalinyartan ahay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya marka waxaan leeyahay dhalinyarta ku dhaqan ama ma taqaanay ku nool waqooyiga Amerika nimanka maanta la midoobay ururka ubbo inay ka digtoonaadaan ka dhowrsoonaadaan horumarka ay shalay ay kaga tageen iyo nabadgelyada maanta jooga inayna ka been sheegin oo halka ay joogaan awal horaba siday u hayeen muwaadiniin maanta inay iyaku shalay toole nabadiidkii dibadda joogay iyo ka gacantooda ku baabiyay kula halgamay socdaaladii madaxweynuhu ku soo mareeyay waqooyiga Amerikana soo dhaweeyay idinka haydeen maantana inaad waxa ducfinimo ah inaad la midoodaan ururo nabadiida oo ma taqaanay deegaanka hore u soo hagaartamay oo waalidkeeni iyo dhalinyarteeni iyo ka dartooda ay u dhinteen waalidadeeni horeyna asbaaba iyo ku dartooda ay sameeyeen u dhinteen inaad macnaheedu ma taqaanay dhalinyarta waqooyiga Amerika joogtay waa idinka cududa dalkan iyo deegaankaniba u baahan yahay waa inaad ka signoonataan deegaankan dhibka iyo macnaheedu ma taqaanay iyo hagardaamada ay soo mariyeen inaan dib uga laaban inaan macnaheedu ma taqaanay la dagaalano oo si buuxda ula dagaalamo ayaan ku boorinayaa waxaan leeyahay oo kale halgankan maanta lagu naaloonayo ee deegaanku cid walba tuulo toos lagu gudbayo oo ninku habeen iyo maalin haduu qofku socdo uunan cid la hadlaysa uusan jirin war shalay bay ahay jigjiga tay kooxa ka jireen nin bilaadan inuu dhex mari karin shalay bay ahay deegaanku inuuna degme u gubi karana buur iyo meelo badan oo dhaamama ama ma taqaanay hagardaamaynaya oo inay dadka socdaalkaaga oo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan ani ma taqaanay caqabad ku ah ay ahayd in degme u talaabo karin maanta se waad arkaysiin inta bridge inta mashruuc ee laga sameeyay maanta deegaankii xagga horumarka xagga leyrka haday noqoto xagga biyaha haday noqoto wax walba sideeda looga maridhariyay marka nabadana nabad baa ugu macaan marka waxa weeye inay dhalinyartu ka digdonaato nabadda lagu naaloonayo nabaddu waa gobol nasteexaad baan leenahay marka waxa weeyaan inay dhalinyartu ka digtoonaato arrimaha la xiriira dib u celinta deegaanka marka waxaan leeyahay waxa la wax la hubo wad baa jira wax la hurana nafqa culus rag baa adeer deegaankan u soo dhintay dhalinyar baa u soo dhimatay marka halgankii dadkaas u dhigtay maanta in la yiraahdo waxba kama jiraan oo dib dhalinyartii maanta ma taqaanay qorigooda intay dhigtay qorigii horumar u dhaqaaqday inay maanta la yiraahdo dib loogu celiyo macnaheedu ma taqaanay taas aqbali mayno waanu la dagaalamayna annaka dhalinyar ahaan baa macnaheedu la dagaalamayna cid alla cid kasto deegaankayaga hagardaamo inay ku keento rabta horumarka la taala horumarka ay cid alla cid iska indhatay kartaa ma jirto qofku uurkiisa kan ciga laakiin mid indhihiisa iska tiri kara ma qof walba uu arka cid kasta oo deegaanka
maanta horumarkiisa uu ka gaadhay xagga nabadgelyada, xagga caafimaadka, xagga biyaha, dhinaca horumarinta, dhinaca shaqo abuurka, dhalinyarta shaqo abuurka loo sameeyey, macnihii mataqaanaa maanta iskaashatooyin loogu xiray waa wax aan shalay jiri jirin. dhalinyarta waqooyi gaar ahaan ku nool waqooyiga America inaad ka digdoonaataan, xukuumaddiinana aad si hufan oo labqabayna u taageertaan ood halkii hore kaga haysan cid alle cid kasta oo fikir horumar diid macnihii maanta ku jeeda oo deegaanka in carqaysa doonaysa mataqaanaa inaad awal horeba saad horumarka uga soo qayb qaadan ka jirteen inaad ugana soo qayb qaadataan hawsheena halka aan ka wadno